markii sanaheeda si buuran la sheegay markii sifadeeda si weyn la ajiibay markii sawirkeeda fooqya dheerna la saaray markay sancadeeda aqoontu siyaaday inay jaamacadaha Soomaaliya si aan u saraysaanu dhammaan wada sahnee suuqa laaskana qaad ويرسي سلامية سوتشيت كمسجد كوين سيدانا طبقيدا سلانكي سكورا اليونيفرست سال اليونيفرست وانتم على المفين وريا يا بقولن تماكن بين ناسات تعبير بحياسة والله جماعة ضد كل واحد بنقول لي سيدي المدرسة ماشي ما حتفرق جماعة اللي واحد تبغى توي ولد اللي كده يوم جماعة طبعا بيننا تنطق تطور بيننا دون من قال يقول يوم نستمر هذا واحد تعرفون كم أنا طبعا واحد تعرف واحد وهم بعض الرشاط أخلاق يلوش ليه بلوك برا جماعة تبدأ بالبيئة إيه ولا ولا يوكاس ولا هذا كان جماعة وجه تبغى هو بس هذا جيبي هذا لما وريا سودو هذا سودو وريا إلى كذا ما ضغط ما لو تدين يجمع عدا هرم ووضيو كذا يو يبدأ يو ملا هو مرة بس طبعا ما أرضي يجمع عدا هم بندقان يا حات كويس أنت محمد يروى أرضي نقول في الجامعة لو وقت تفصل أي حات كويس ما شاء الله مكمل شو تدري بدو تدو بس تبدأ بنودي ولا يا تنا ربع حات كويس حبكم فرتاد استيج أي ما نكمل لنا نخرين كو عين وياك نوك هنا عندنا ضغط كو ونيك هو ندي سو معلنا أي دوحة وحوي نقول شعر هذي وجامعتي كانوا نوقد دورتي ودبدي وجمع رمي بان وهاينا ودبنا حوي باهيدي أقونات بان كها قبتني ومحيط هناك حوي جامعتي كلني فكتير بدل ما بسوق كلني ونطيني وحوي برتكال بان كدرنا وقف وحوي وحي مرك لو دغيو wax برتكال والله يفوارك يا وحي لو دغيو كودي وانا ارضي قفي على رتي ما وحي كان لو دغيو يا حتى محنا من عافمات ما كجرا عافماتكي انجنيريغي انجنيريغي كجرا كمبيوتر كورة اي تي وwaxyaalaha niyad xooga saarayba haye marka ka wuxuu ku jira qaybta ICT ku jira كودي كارنت سدحاد هو لكن عدان مو دغيان عدان معلمين تدغتا waxay ajnabi iyo macallimiin wada ka wada isku jira warana عدان inuu عدان hawligo عدان niyadu waxa weeye uu qof cilmi leh bal duuniya عدان inuu kuwana meeleeyinde ya meeleey ha way jiraan macallimiin oo dhigta waxa عدان ka aqoon badan ay ka aqoon Allah كودي marka aad istijiyo waxa weeye isaga kaas xasane ومركا جامعة مقعد جامعة سهل بالغير سهل كاني سهل نوينا سهل سودي سهل نويمي سهل نيسي أقول ترى السنغال يا سويسرا لا دوني ما يحس مشرع سهل بصور كتلا سهل بصور كتلا سهل لقد هذا كذا يقال تونا المسي سهل أنا كوهايدكتو أي ما ست هذا أديك سهل ما رحت وهذا الكندا ولا قمر كندا سويسرلاند iyo Norway toona mar wadankiiba la isku keenay aqoontiiba wadanka laakiin dad mobil kaliya aan soo dadka dhan uma doodan de soo weeyeen waqtiba ma kala baxaba saacad baa dhan baa jecel aqoontiga halkan ka dilaacay waa ana kharashka ma jirto aqoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دمان أرضيدا سم فوركس سهل سوفتوير iyo ardayda jaamacadda dhigata waa dhamaantiin meel kasta oo caalamka joogtaan waa macallin maxamed jaama oo bariyahan baa idin sharaxayay ama bilihii u dambeeyay soo waday kooraska forecaska oo xaqiiqatan course badweynta India oo kala lamida oo aan laga soo goyon karin casharo badan oo kala duwan ayaan soo sameeyay waxaan soo gaaray marka casharka qaybta dhowr qayb baan u kala qaaday qayb harmonic waan soo sharaxay qayb brokers gaar baan u sharaxay qayb basic oo forex waan soo waday kan wuxuu noqonayaa qaybtii basic ee forex kan soo waday ayuu noqonayaa waxaan soo gaaray inaan sharaxo casharka loo yaqaano stop loss alla yaaba zumanka ama macallimiinta sun forex inay marar badan sharaxeen stop loss haddana waxaan isku dayay haddii alla idmo inta ilaahay iga fahansiiyay inaan aniguna marka aan idinla wadaago waa maxay stop loss erga stop loss ayaan maanta sharaxnaa insha Allah
على ربع 10 كان مركز دميستid oo aad ardayo daawatid inaad su'aalahan ka jawaabi karaysid marka aad 10 hadaan fahmin oo su'aalaha aan ka jawaabi karayn halka commentiga loogu talagalay YouTube-ka 10 ka daawanaysid ama website-ka Sunforex ama Sahal Software comment ha ku soo qor insha Allah ama luuqa telefoon numberkayga igu soo weydiiyo su'aasha aad marka aad fahmin su'aalaha laga rabo inaad fahanto waxa koob ka ah what is the stop loss waa maxay horta stop loss 10 kan ayaan ku sharaxi doonaa insha Allah su'aasha labaad ee la rabo inaad fahanto waxa weeye how do you calculate stop loss sidee baa loo calculate garay ama loo xisaabiyaa stop loss-ka qodobkaas saddexaad aan sharaxi doono wuxuu noqon doonaa how do you place stop loss halkee ama sidee ayaad u dhigaysaa stop loss-ka halkee ayaad dhiganaysaa waxaan kaloo sharaxi doonaa haddii la idmo why do you need stop loss maxaan uga baahnaa iska dayn karaa stop loss-ka isna 10 ayaan ku eegi doonaa insha Allah haddii la marka buugiga qalin soo qaado isku day inaad marka aad fahantid sidoo kale casharadan basic waxay aad u anfacayaan ardayda ku jirta qolka wadada cagta saar level 1 ee casharada lagu dhigeysto ayaa aad u anfacayaan haddaba stop loss haddii loo maxay stop loss waxaan leenahay is your account safety net stop loss wax kala maaha waa wixii account-kaaga badbaadinayay ama account-kaaga badbaadinayay ayaa waxa loo raayaa stop loss tusaale sawirkaas ayaa kugu filan logic ahaan inaad maskaxda gelisid waa qof wish soo tuuray oo xarig ka soo laalaada waxa hadeer haya waa stop loss xarigaas haya kawar qofka hadduu wishka iska soo tuuro ama dabaq content biyana iska soo tuuro maxaad ka rajaynaysaa qofkaasi dee qofkaas waxa weeye nolol dhulka la tignaayso ma saa darteed marka kana waa sidoo kale yani hantidaadii ayaa difaac u xiranaysa oo waxaad leedahay haddii suuq baan galay halkaas ayaan suuqa u rajaynaya inuu aado halkii aad u rajaysay suuqa inuu aado hadduu aadi waayo jaha kale suuqa uu aado stop loss ayaan ku xiranaya suuqa iga saar aniga yani intaasoo bib 10 bib aan khasaaro oo kale tusaale ahaan marka maxaan difaacanayaa hantidii ku jirtay account-kayga balance-kayga lacagta ku jirtay ayaan ilaashanaya waxaan ku talagelayaa tusaalaha haddii $1 igu jirtay oo kale inaan ilaa $10 keliya aan khasaaro oo aan badbaadsado 990 haddii laakiin stop loss aadan ku xirin maxaa dhici karaya waxaa dhacaya haddii suuqi markii suuqa dhankaad u filaysan dhanka kale hadduu aado oo stop loss aadan gelin khasaarahaagii ayaa badanaya ilaa uu gaaro mararka qaar dhici karta in $1,000 ba aad khasaartid account-kaaga inuu xidhmo ama aad maqashid account-kii baa iga gubtay iyo wax lamid ah marka meelaha dad badan oo forex-ka ka niyad jabay ay la burburaan waxa weeye waa halkaas weeyaan waxaad arkaysaa qaar ku oranaya stop loss gashan maayo account-kayga oo stop loss iga soo taabanaya gelin maayo stop loss lama shaqaysanaya marka qofkaasi khatar ayuu miisku saaran yahay qofkaasna waxaa la oran karaa risk management ma uusan samayn no stop loss you have no risk management waa la oran karaayo qof yani hantidiisa inuu ilaasho ku talagalay maahan waa qof hantidiisa banaanka adhigo oo kale waxay la macno tahay meelahaan ammaanka ahayn oo kale adoo habeenkii yidhahda barkii yidhahdo kale businesskayga ayaan furaya oo kale marka naftaaduna khatar bay ku jirtaa hantideeda khatar bay ku jirtaa tanna taas lamid bay la mid tahay oo haddii aadan hantidan ilaalin oo balancigaaga aadan ilaalin waxaa dhici karta in aad wixii ku khasaartid dadna naftaada xitaa in maskaxdaada isku xiyacdo ayaa dhici karta khatar gashay dhici karta marka hantidaadi naftaadaba ha haligin talada aan siinay waxa weeye stop loss waa inaad isticmaashaa oo aad difaacata hantidaada oo waxa aad khasaaraysid waa inaad og tahay okay sawirkan haddaad eegtid why should you use stop loss maxaan stop loss-ka u isticmaalayaa if a trade goes the wrong direction haddii ba la trade uu u dhaqaaqo direction khaldan jiha khaldan hadduu dhaqaaqo your stop loss will stop the order stop loss wuxuu kaa joojinayaa orderkii lacagtii aad sarrifaysay ee soconaysay ayuu stop loss-ku joojinayaa after certain price limit has been reached marka la gaadho halkii adigo stop loss-ka aad dhigatay marka la gaadho wuu joojinaya hadda suuqan eeg tusaale ahaan suuqan wuxuu socday up train kor ayuu socday down train hoos ayuu soo aaday soo wajid halkaas aad ka gashay suuqii markuu suuqii halkaa up train-ka u dhaqaaqay halkaa marayay ayuu suuqii kala jeediyey oo direction-kii ama news ku yimaha sababta ha noqoto ama siyaasadda waddankaas ha noqoto suuqii waa isbedelay jahan kale ayuu aaday stop loss marka halkan ayaad dhiganaysaa marka suuqii xagga soo aada halkaa markuu marayo suuq adiga waad ka baxaysa uu kaa saaray stop loss account-kaagu u xidhmaya $10 ama $5 hadda wixii aad stop loss ku talagashay ayaa kaaloosa lakin haddaan stop loss dhigi lahayn downkan uu suuqa soo aado lacagtaadi aad minus baad guranay waad fahan soma marka stop loss-ku yani qaabka u shaqeeyo waa qaabkaas weeyaan waxaa weeye suuqa markaad gelaysid waa inaad ku talagashaa faa'iido iyo khasaaro labadaba wuxuu la mid yahay ganacsiyada caadiga in ku shaqaysano ganacsi kasta wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaarso marka waa inaad ogtahay khasaaraha intaad gaadhaysid waa inaad iska xadida waxyaaba forex ku fiican yahay ay ka mid tahay khasaaraha intaas ay ku talagelaya waa inaad tiradaan marka arrintani waa very important weeye in risk management
marka wax la maamulayo oo khatarta laga taxadarayo arrintan aad iyo aad bay muhiim u tahay marka casharkan hadayalsan ardayo levelka doonto waxbarasho ku jir account-kaaga lacagta doonta ha kugu jirto xitaa haddaad demo account aad isticmaalaysid waana stop loss isticmaashaa oo demo account laftigiisa waa inaad ugu maamushaa sidii lacag real oo kale ah haddaan deemada aad maamuli kari weydid hadhowta lacagta dhabta adu aad leedahay ma maamuli karaysid marka taasna intaas ayaan kaga baxaya suuqan oo kale ama halkan waxaa la calculator stop loss oo ahayd su-aal ku jirta cashirkeena sidee baa loo xisaabinayaa stop losska marka sell down stop up halkan oo kale u fiirso halkan oo kale u fiirso suuqa halkan oo kale ayaa ka galay halkaa maxaa yaala stop losskiga ayaa yaala marka suuqa haddaan halkaa kasoo galo oo kale tusaala dhibcaha greenka haddaan suuq kasoo galo priceka suuqa muxuu maraya qiyaastii numberka halkaas oo 103 iyo 104 ayuu udhexeeya priceku stop loss waxaan kaga baxaya xaggee 104.75 suuqan down buu ahaa haddii suuqan uu soo noqdo oo intuu soo jabiyo stop loss ku dhufto waxaan khasaaraya waa intaas keliya weyn intaas keliya ayaan khasaaraya oo ah dhowr bib 5 bib 10 bib iyana waa xisaab marka stop losska qaabka loo calculate waxaan kusoo koobaya ama loo xisaabiyo inta bib aan khasaarayo tusaale haddaan 10 bib baan khasaaraya bib waxa uu yahay 10 hore basic ayaan kusoo dhigay oo isla halkan aad ka daawartad kor usoo socotid aad ka dhexelaysaa 10ka aan ka sharaxayo bibkaas loo xisaabiyo marka 10ka haddaad fahantid marka inta bib haddaan 10 bib khasaaro marka waad garan waad soo saari karaysaa inta dollar ee aan khasaaray haddaan 20 bib khasaaro mar walba wuxuu ku xidhan lot size-ka oo 10kaas aan ku sharaxay lot size-ka soo aad ku sheegay ku xidhan tahay inta dollar aad khasaarto ogtahay markaan suuqa gelayo baan ogahay 10 bib baan khasaaraya lotkan gelayo waan ogahay waan kala gooshanaya 10 dollar baan khasaaraya waan leeyahay haddii aan xaggan aadan waxaan leeyahay ka soo qaad 4 dollar aan faa'iido kale haddii suuqa dhankaan rabo analysis-ka uu aado haddii marka suuqa dhankaan rabo intuu aado dib u noqdo waxaan ku talagalaya 10 dollar inaan khasaaro taasna qaabka loo xisaabiyo calculation-kaas 10kii bibka ayaan si fiican ugu sharaxay 10ka ku noqo oo dib u daawo marka downka isna la calculator lagu sameynayo stop loss xagga hoose i yaala oo tusaalaha suuqan wuxuu amahay buy buu ahaa suuqan kor buu socday kor baan u galay ku talagelay hadduu down usoo noqdo oo downkan uu kusoo dhaco stop loss xagga hoose kusoo dhaco iyana intan bib ayaan khasaaraya intan ayaan khasaaraya intaas bib ayaan khasaaraya waa taas laanka greenka waa meesha suuqa galay dhadooda casaankan waxaa loogu jeedaa meesha suuqa stop loss kaga dhintay waxaan filay kaa inaan marka aad isla fahnay ayaan rajaynaya qaybtana wax kale maaha to calculate your stop loss it's like calculating bibs waa intaad ku sheegay sida loo xisaabiyo stop losska inta bib waxay la mid tahay sidii loo xisaabinayay cashirkii aan kusoo sharaxay bibka ayuu la mid yahay stop lossku si loo xisaabiyo cashirka bibka ayuu la mid yahay you just calculate the distance from your entry price and your stop loss kaliya waxaad xisaabinaysaa entry price halka suuqa aad ka gashay iyo halka stop losska aad dhigatay inta udhexaysa unbaad kala jaraysaa marka to find si loo helo stop losska SL stop loss baa loo soo gaabiyaa on a buy si loo helo stop losska buy-ga ah subtract from entry waxaad ka jaraysaa keliya entry maxaa looga jeedaa war halkan ayaan ka galay suuqa halkan ayaan ka baxay labada unbaad kala jaraysaa waxaa kusoo baxa ayuu noqonayaa marka buy laga hadlayo stop loss haddii laga hadlayo suuq aadaya hoos aadaya isna waxa weeye aad u maadsameynaysaa yani waxa weyn ba meesha ma yaallo yani casharka bibkaada maantan way fudud haddii kalena yani halka aad ka gashay iyo halka aad ka baxday inta biba udhexaysa kala jaro marka trade-ka marka aad gelaysid haddii signalka qolkeena some forex ay ku siiyeen sida FIB signalska aynu leenahay kale sida qolka trade ID-yaha ee qolka naga sarreysa Cabdalla Sando signalada fiican laga qaato aynu leenahay inagu ardayda ay ku jiraan sida qolka Dr. Spiller oo isagana aynu gacanta ku haysano Armin aynu ku leenahay oo ardayda some forex ku jiraan dhammaan signalada ay bixiyaan signal laga soo bixiyana waa lagu soo qorayaa entry-gaaga TB-gaaga iyo stop loss-ka waartay marka adu sidaa u gasho haddaad rabtid inaad xisaabisidna cashirka bibka baro calculation ku noqo dabeedna la soo bax inta aad khasaaraysid intaas waxaan filayaa inay calculation-kaasi inuu fudud yahay ayaan filayaa marka ardayga marka waxaan kusoo koobayaa cashirkeena aad iyo aad muhiimad gaara ayuu leeyahay stop loss ku leeyahay stop loss la-aan suuqa ha gelin ayaan koran lahaa taxadarkaagu ha fijinaado mar walba waxaan ku leeyahay hantida aynu haysano ayaa waajiba inaynu ilaalino faa'iido way iska timaadaa oo faa'iido haddii aad hantida ilaalisid khatarteeda ilaalisid oo hantida aad difaacatid faa'iidadu way imaanaysaa marka muhiim maaha maalmaha hore suuqa inaad faa'iido weyn aad ka faa'iidid saan mar badan ku celino oo macallimiinta ay ku celiyaan muhiimaddu waxa weeyaan in aad hantida aad haysatid $100 ba suuqa soo shaba 100kii waa inaad ilaalisaa waa in khasaaraha uu yar yahay marka haddii stop loss waxyaabaha khasaaraha ilaaliya ayuu ka mid yahay haddii aadan stop loss isticmaalaya 100kii inaad hal meel khasaarto ayaa dhici karta warkaas ducadiisa ma insha Allah intaas ayaan kusoo koobaya haddii aadan ka mid ahayn ardayda some forex oo mar walba la soo weydiiyo xaggaa iska diiwaan gelinaa oo some forex uga mid noqonaynaa cashirka qaybta dib insha Allah daawo aad baan idin salaamayaa
wahagaag haddaan qaybtan haddaba aan ku tuso oo aan ku taabsiiyo insha allah sida aad uga mid noqon kartid teamka Somforex sidaan horeyba kugu sheegay Somforex anagu ardayga wax lacaga kama qaadno laakiin ardayga teamka ka mid noqonaya waa inuu ay market lives ka diiwaan geliyaa isla markaana uu isticmaalaa linkiyada anagu aan leenahay teamku leeyihiin ama liiderada Somforex ay leeyihiin for example tusaalahaan haddaad rabtid inaad aniga teamka Maxamed Jaamac iyo Sharmaarka iyo hogaamiyaasha sarsare aad rabtid inaad ka mid noqotid halkaa waxaa ku qoran www.imarketslive.com baa ku qoran halkaas ayaad slash xariiqda yare forwardka ayaad hal mar taabanaysaa xariiqda markaad taabatid waxaad qoraysaa xarafka s b o g c a d waa s bog cad waa inaad kusoo dhaweey waa xarafka sa ba o ga a a da intaas kaliya qoraysaa inta markaad ardayga qortid waxaad taabanaysaa enter yani waxaan rabaa adoo gurigaaga jooga magaalada adduunka halkaa doonto ka joog inaad isdiiwaan gelisaan rabaa wuxuu marka halkaas ar kugu soo qorayaa accountka yaga oo ku qoraya Sharmaarke Cabdirasaaq Maxamed website ID lambarkaas ku soo qoraya markuu intaa ku soo qoro waxaad ku dhufanaysaa marka get started waxaan rabaa baad oranaysaa maxay inaan hadeerto bilaabo oo aan isdiiwaan geliyo oo fiirso get started markaad ku dhufatid marka wuxuu ku weydiinayaa ma customer baa rabtaa mise IBO waxaad oranaysaa waxaan u baahanahay maxay customer oo ah waxaan rabaa inaan arday noqdo cilmiga forex-ka baranaya customer marka ku dhufatid marka simply wuxuu marka ku weydiinayaa xagga sare wali magaciisa Sharmaarke Cabdirasaaq waa kugu qoran wuxuu ku weydiinayaa marka magacaaga saddexan email addresskaaga telephone numberkaaga oo ujeedaa wuxuu kala ku weydiinayaa username-ka aad ku gelis email-ka password-kaaga aad leedahay ku qoraysid wuxuu kala ku weydiinayaa labadan waxbarasho ayaa jira kee rabtaa tigta waxay saaran tahay kan 325 waxaa tigta saaraysaa kan ay ku qoran tahay 225 ayaa tigta saaraysaa hoos baadaysaa kuwan kala dooran maysid halkan lacagta la bixinayo bishii 234 ma bixinaysaa kan marka waxa la socda software fara badan baa la socda sida web analyzer-kii gold cap-kii swapcoin-kii waxa dhowta baahda ku darsanaya waxa doorata kan ay ku qoran tahay 164 bishii kan ayaan bixinaya ayaa dooranaysaa please halkaas ka ilaali haddii ka 224 buu bishii ka raba kan hoose dooro kan maxaa kula socda waxbarashadii oo dhan waxa kale oo ku soo socda hormoonigina free buu ku yahay hormooniga meesha ugu qaalisan free buu ku yahay waxaa kula socda habeenka doctor waxaa la Christopher Terry xisadiisa oo kale IML TV oo dhan Biptog waxa soo way kula socdaan ka marka dooro hoos baad marka aadaysaa halkan marka maxaa yaala halkan hadda waxa ku dooran credit card marka halkan waxaad ku qoraysaa cardkaaga numberkiisa hadduu yahay Visa card hadduu yahay Master card ku yahayna halkan ay ka dooranaysaa Visa ama Master cardka magaca ku qor halka ku qor card number sala ku qor xilligu ka dhacay halka ku qor lambarka security-ga qor wadanka aad joogto qor buuxbuuxso haddii screen la isticmaalo screen waa qaab kale lacagta lagu bixin karayo oo haddii screen lacag ku jirto screen-ka ayaa dooranaysaa ku dhufanaysaa marka inta dhameysid address-ka waxa buuxisid halkan hoose maxaa yaala kuwan ayaa tig saaraysaa halka tig baad saaraysaa soo jeedid tig baad kuwa soo saaraysaa waa kaas waa kuwa soo dooranaysaa kan waa saaraysaa kan waa saaraysaa kan waa inaad hubisaa qofka account-kan waa maxay waa isbog cad magaca waxa ku qoran Sharmaarke Maxamed Sharmaarke Cabdirasaaq baa ku qoran iyo maxaa ku qoran account ku wada qoran maxaa Jacsaal baa ku qoran labada oday ayaa marka account ku wada qoran kan ayaa marka iska wada waa inaad hubisaa halka iska wada gelinaysaa hadiise qof marka kadib waxa soo rarsan maxay join now ayaad oranaysaa hadiise aad rabtid qof anaga teamkaaga kamid ah inaad isaga si hoos tagtid sida Injineer Cabdullaahi Al-Cadaal oo kale sida Dr. Farduus Xasan oo kale Dr. Burji oo kale Axlaam oo kale macallin Al-Nuur oo kale macallimiin soo farso wacansan haddaad rabtid inaad ka mid noqotid macallinka ayaad luuqa WhatsApp iska laata waxaad oranaysaa maxay linkigaaga ii soo dir ama username-kaaga ii sheeg marka meesha Facebook aad ku qoraysay ayaad macallinka waqtiga ku galiyay aad rabtid inaad teamkiisa ka mid noqotid ayaad ku qoraysaa marka muhiim ma aha inaad anaga linkiga aad aniga Sharmaarke isticmaashid muhiimadu waxa weeyaan qof ka mid ah teamka Somforex inaad ka diiwaan gashan tahay qof ku doona noqdo ha noqdo Engineer Abshir Aidid ha noqoto Suur Ali Umar qof teamkayga ka mid ah dad ka mid noqotid teamka maxaa jaa waa ka mid oo teamkayga ay saa uga mid tahay saa la soo insha Allah qolalka oo dhanna waa lagu wada darayaa haddii alla idmo qaabkaas oo qaabka la isdiiwaan geliyo waa haddii Master card-ka ama Visa card-ka ay lacagtu ku jirto haddaysan diyaar ku ahayn Master card ama Visa card lacag kugu jirin ama mararka qaarkood waxaa laga yaabaa iyo lacag kugu jirto inuu IML diido cillad ay sheegto maxaad samayn kartaa waxaad samayn kartaa gabadha noo qaabilsan qaybta xisaabaadka finance-ga Suhuur Ali Umar lambarkeeda shaashada hadda ku hor yaala eber 6344999138 kaas ayaad lacagta saad ahaan ama EVC ahaan ama M-Pesa ahaan
يعني سهل أهم برجع هذا إمبيسا كمان شغال الصومالية lambarkaas ayaad ugu soo dirtaa insha allah ama xawaaladaha dahabshiil iyo taadoonti usoo dhig waxay jirtaa laascaanood markaa usoo dirtidna usoo sheeg oo luuqa usoo sheeg inaad lacagta u dirtay ama anoo kale whatsappkayga lambarkayga waa ka xagga hoose hadda yaalaha hadda kuu soo qoray igu soo dir screenshot kusoo qor lacagta waan soo dirane si marka annaga markaa ku diiwaan gelinayna uma baahan inaad diiwaan gelisid magacaaga oo saddexan iyo email addresskaaga iyo magaalada joogtaad soo sheegaysaa dabeedna anaga ku diiwaan gelin oo kuusi dirna user passwordkaaga labada qaabba waa isku diiwaan gelin kartaa haddii alla idmo waxaan filayaa markaa taasna inaad kaa shaafiyey بليس مركا مشغول كي اد بدن yahay su'aalaha suuqa ay gasoo weydiinina qofkii raba inuu isdiiwaan geliyo waa intaas kaliya some forex lacag kale ka doonaysaa maya some forex signaladana bilash bay ku siinaysaa oo fiya basics lagu dirayo bilash waxbarashadu waa ku bilash wax walba free lagu caawinay insha Allah laakiin qof teamka kamid ah linkigiisa qaado intaas ayaan ku soo koobayaa fadlan 10kan share hakay lawn like nasaan insha Allah comment-na ka bixi ducadu waa xagaaga khayr badan ay rajeenay Ramadan Kareem ilaahayna Ramadan tahay naga aqbalo khayrkeedana ha siiyo intaan xisaabtan mid la mid kulmi doono waxaan ka tagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu